21 kooxood oo ka soo qayb galay koobka horyaalada Somaliland oo bishan ka bilaabmay garoonka Cabdulle Stadium ee magaalada Berbera. Waxaa afaardhamaadka koobka horyaalada gaadhay kooxda Gaashaan Hargeysa oo ay asarki doonaan kooxda degmada Wajaale, halka ciidanka booliska ee gobolka Saaxilna ay kulmi doonaan kooxda caasimadda Hargeysa ee dowladda hoose. Waxaa fiinalka u gudbi doona 2 kooxood, kuwaas oo midkoodna ay haran doonto koobka horyaalada Somaliland ee sanadkan. Waa adag tahay in la saadaaliyo kulamada u dhaxeeya 4 kooxood sababtoo ah waxay ka soo baxeen kulamo adag isla markaasina ay halkan ku yimaadeen. koobkan intii uu socday kooxaha taariikhda dhigay waxaa ka mid ah kooxda dowladda hoose ee degmada Wajaale, kuwaas oo markoodii koowaad ay ka soo qayb galeen koobka horyaalada Somaliland u gudbay afardhamaadka koobka. kooxda degmada Wajaale waxa ay reebtay kooxo ay ka mid yihiin kooxdii ciidanka booliska ee gobolka Murudijeex ee magaalada Hargeysa iyo kooxdii ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ee magaalada Burco. Qurxiyayaashii, taageerayaashii, xamaasadii iyo kuwii dhiigga u joogi jiray kooxahooda ee Al-Amsa Stadium waa macaasalaamayeen koobka horyaalada Somaliland. Burcaawiyiintu 4 kooxood waxay ka noqon doonaan daawadayaal oo keliya. xidhiidhka kubadda cagta Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Maxamuud Cabdi Awxirsi ayaa waxay soo kordhiyeen intii horyaalku socday in la bixiyo laacibka ugu fiican, laacibka wareegga, weliba abaalmarin qura inaan la siine in qadar lacageedna loo raaciyo si loo dhiirigeliyo ciyaaryahanada koobka ka qayb galayay. Tallaabadan oo ah mid hore loo qaaday si loo muujiyo sida xidhiidhka kubadda cagta uu diyaarka ugu yahay horumarinta ciyaaraha waddanka. sidoo kale bilowgii koobka horyaalada Somaliland xidhiidhku waxa uu sheegay in kooxda koobka horyaalka sanadkan qaada la abaal marin doono isla markaasina lacag loogu dari doono qaadista koobka oo markii hore la bixin jiray koob kaliya. koobka waxaa ka tegay kooxo la saadaalinayay inay ku guuleysan karaan amaba ay gaari karaan afardhamaadka iyo fiinalka koobka horyaalada Somaliland. kooxahan soo qaadan karno waxaa ka mid ah kooxdii maaliyadda ee gobolka Togdheer, taas oo intii koobkani socday soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah, hase yeeshee koobka ay ka reebtay kooxda dowladda hoose ee Ceerigaabo, taas oo aan la saadaalin karin inay gaari karaysay wareegga sida dhamaadka ee koobka horyaalada Somaliland oo iyadana la reebay.